أنا AVV General عمر محمود عثمان وحاواي يعني مقع كستو إيو منصب كستو إيو إرقوينك كرسيga ragga ah iyo odayaashayda iyo akhyaarta saaxiibada aqoon-yahanada dadka Soomaalida u adeega oo yani midnimada Soomaaliyeed iyo wanaaga jecel iyo haweenka sida inta aad ku fadhidaan magac kasto iyo mansab kasto aad ku fadhidaan waa salaamantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa waqti dheer ayay idinku qaatay aniga waxa waaye hawsha aan qaban doono waxa weeye maadaama aan sarkaal akademiyaati ah lawriyaati ah waxa waaye kulliyada fara badan iyo meelo fara badan min raas kaabon ilaa raas casir ka soo shaqeeyay maadaama aan ahay waxaan beeshatan oo aan xaway xildhibaanka oo kursiga aan u qaadayo waxaan u ballan qaadayaa in aan marka koobaad aanan kursigaas oonan meel cidlaa ka naqan inaan baarlamaanka aan u fariisto inaan waxay u baahan yihiin aan uga doono inaan waxay yani ayakuna dowladda inaan ku xiro ayakana aan dowladana ayaka aan ku xiro oo ay macnaa ay inay Soomaali weyn midnimadeeda inay ka qayb qaataan beesha tani marka hadda waa ku maadsan yihiin odayaashaydii iyo ergadii wixii meesha ka jooga kursiga 137 waaba ii codeeyeen waa ii ogolaadeen inta dhimanna waa ii dhamaystirmi doontaa insha Allah waxaanan yani barnaamijyadeeda kale oo dhan idinku soo gudbin doonaa maadaama waqti dheer aan joogno oo maalmahan oo dhan aan qabaqaabada in howlahan aan ku jirnay waxaan idinka codsanayaa inaad xawaay raalli noqotaan aan maaragtay dadkana aan kala fasaxno xilligan wixii ka dambeeyo maadaama meelo dheer loo yaado waana ku mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay uu xildhibaanka u noqonayaa wareer nasiib badan aad nasiib badan aad iyo aad aniga waxay la quman in kursigiisa loo xidho waayo innaka dhan baa u baahan uma baahin calasan ninka waxa weeye xildhibaankan Cumar Maxamuud waxa u baahan Soomaaliya oo dhan xafladda uu ku shaacinayay musharaxnimada golaha shacabka Generaal Cumar Maxamuud Cusmaan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho munaasabad si heersara loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano siyaasiyiin generaalo odayaasha dhaqanka nabadoono dhalinyaro iyo haween ayaa ka soo qayb galay munaasabad uu ku shaacinayay musharax xildhibaan golaha shacabka Generaal Cumar Maxamuud Cusmaan oo u taagan kursiga nambarkiisu yahay hoob 137 oo deegaan doorashadiisu ay tahay Galmudug Generaal Cumar oo ah qabiir dhinaca ciidamada aqoonyahan bulshada in badan ku soo dhex jiray ayaa hadda waxa uu u taagan yahay hoob 137 si uu isbedel muuqdo ugu sameeyo qaar ka mid ah dadjooga munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in Generaal Cumar Maxamuud uu u qalmo kursiga maadaama way arag in badan u soo shaqeeyay bulshada uu yahay waxna ka bedeli kara dhibaatooyinka haysta bulshada Soomaaliyeed hallo codeeyo jananka sanadkan waxaan isleeyahay xaq ciidan xaq waayo aragnimo xaq aqooneed iyo xaq yani maaragtay aqoonta maadiga iyo tandiiniga ahba nin dhisan oo aan aqoon u leenahay weeye nin haddeer dhashay maaha Cumar Maxamuud Cusmaan Generaal Abukato Akademiyata oo soo maray kulliyado badan oo maanta aan isleenahay haddii kursigaas aad u hibaysaan oo aad doorataan wuxuu dalka ku soo kordhin doonaa wax badan biyo sacab isku ma qariyaan Cumar uma baahna faalla aniga aan ka faaleeyo Cumar waa ninkaas banaanka degay waa ninkaas jananka ah waa ninkaas aan waligiis laga sheeganin
waxa ka dhacaya wadanka aan waligii shaqo ku yeelan qarannimo u taagna marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaran baana deeqo guri baan leenahay Umar waxaan leenahay insha Allah biidnillah kariim hadaa kursiga noo soo qaadana waa sidaan rabnay hadaa soo weysana janannimadaadaan ku seexannay waa soo dhaweynaa waan iskarab taagaynaa waana mudan yahay nin u qalmana waaya sarkaal u ahaa waay arag u ahaa nin waay arag usoo ah oo soddonka sanana dhex joogay oo san meelna ka aadin dalka oo bulshada ku dhex jira saas daraadeed waa mudan yahay inuu qabto xildhibaannimada mas-uuliyaddaas onu kore waa ku taageeraynaa waana ku taaniyeynaa anna haddaan ahay odayaasha dhaqanka oday ka mida waxaan leeyahay barbaarta fadhido kursigaas la carabaabay aad u taqaana inay leedahayna ogo oo rijaal iyo niswaadba leh idinkaan idinku soo gudbinay ilaahay madukaagatay haddaan dhaqankeena hana waa idinku horkacaynaa idinkuna nagu garbagala kuwa cumar sii gelbiya soona gelbiyana allah naga dhigo abukaate maxamuud oo ismaan caddaan waa nin jenaraal oo la yaqaan dalkiisa iyo dadkiisana qaymo ku dhaxle waxa waaye jenaraalku waa soo daahayaan leenahay dad badan oo garbihiisa oo badan oo miiska saaranaa jiro laakiin jenaraalku waaye arag waaye kursigan kursiyo wuxuu ahay qoto ku soo gelaya maayna ninkuu dhasho waaye waa kursiyo mudan yahay waxa dadka lagu doorto waxay tahay in dadka ugu fiican laga soo dhex saaro oo ay dadku ka soo dhex baxaan dadka ugu wanaagsan dadkaas leadership ummadda hoggaan u noqon kara in aqoon leh khibrad leh experience leh knowledge leh amaana leh on corrupted ahayn dadkaas way dadka u baahan yihiin maanta marka did guda iyo dibad maanta waxaan soo dhaweynaynaa abukaate xildhibaan murashax xildhibaan ila soo dhaweeya marka walaalkeen jenaraal Cumar soo dhow baan ku leenahay sida ay u sheegeen odayaasha dhaqanka kursigan waxaan u rajaynaynaa inaad noqoto markan ay noqoto tookadaada inay noqoto ayaan ilaahay kaaga rajaynaynaa biidillah ilaahay kaaga baryaynaa annagu intaan ka aqaano jenaraal Cumar shakhsiyan intaan ka garanayo waa nin Soomaaliyeysan ma aha nin qabiilaysan waa midaan garanayo xildhibaanka u noqonayaa waa reer nasiib badan aad nasiib badan aad iyo aad aniga waxay la quman in kursigiisa loo xidho waayo innaka dhan baa u baahan uma baahin calasan ninkan waxa weeye xildhibaankan Cumar Maxamuud waxa u baahan Soomaali oo dhan uma baahna hal jifi uma baahna waa nin Soomaali oo dhan u baahan tahay waa nin changes sameynaya changes isbedel buu samaynayaa ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray jenaraal Cumar Maxamuud oo Cismaan oo u taagan kursiga nambarkiisu yahay hoob 137 hawsha aan qaban doono waxa weeye maadaama aan sarkaal akademiyaati ah lawriyaati ah kuliyada fara badan iyo meelo fara badan min raas kaabon ilaa raas caseer ka soo shaqeeyay maadaama aan ahay waxaan beeshatan oo aan xildhibaanka oo kursigaan u qaadayo waxaan u ballan qaadayaa in aan marka koobaad aanan kursigaas oonan meel cidlaa ka naqan inaan baarlamaanka aan u fadhiisto inaan waxay u baahan yihiin aan uga doono